سلمان بوسم كوفيقة بوسم كوفيقة يا كم كادميت كوفيقة كوانا يا كم كادميت كوفيقة يا بعيد لك صغر فقرت اليوم والله ضرر ورحون هرت صورك قدافنا مستوسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مقعي وابقر عبدي أحمد علي وابقر كبيلة هوية ماشا waxaan usoo maaragtay galabta insha Allah waxaan rabaa inaan maaragtay afar qodob oo kamid ah inaan soo dul istaago marka koowaad waa arinta gobolka Banaadir ee dawladdu ay yiraahdeen waxa loo sameeynayaa maaragtay xubno kamid ah golaha sare ee baarlamaanka Soomaaliya midna waxa weeye arinta COVID-19 ka midna waxa weeye sidii maaragtay qodobadii loo sheegay COVID-19 ki loo jibiyay midna waxa weeye waa caqabadaha ka taagan dalka ee ay ku hayaan guddiga doorashooyinka horta qof kasta oo Soomaaliya oo jecel dadka xuquuqdiisa in la helo oo dadka gobolka Banaadir ay helaan xuquuq aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa waxaan u soo dhaweynaynaa gobolka Banaadir muddo badan oo hadda madaxweynaha hadda jooga maxaa Cabdullaahi Farmaajo ka hor madax badan baa soo martay mayna jirin qolo ka hadashay oo tiri gobolka Banaadir wuxuu yeelanayaa maamul walow hadda markii odayaasha iyo ogaasyadu ay hadleen ka bacdi lagu dhawaaqay arintaas uma aragna marka arintaas lagu dhawaaqay oo Maxamed Cali Ogaas markuu hadlay ka bacdi dadka dambe hadlaya wax sax ah anagu ma aragno waxaan u aragnay mudaharaad looga soo horjeedo Maxamed Cali Ogaas iyo arrimihiisa si aan xitaa moogta dadkaasu ayagana lagu qanciyo waxna aan loo soo waaqowda maqashay waxna haw qaban arintaas taasaan u aragnay waxaan kaloo ilaa iyo hadda mayna cadayn dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho dhowr jeer baa waxa la dul saaray xaalad degdeg ah laga ma qaadin wali ilaa iyo hadda xaaladii degdeg ahayd wasaarad dawlad madaxweynaha hor ku sheegay ka bacdi cid ka qaadaa ma jirto wali xaaladii degdeg ah haysata arinta marka waxaan rabaa inaan ku soo gaabshoon iraahdo dadka gobolka Banaadir degan qaar ahaan dadka anagu aan boqorka u ahay iyo ugaaska Mudulood iyo imaamka Mudulood labaduba waxaan rabnaa arintaas inaan loo arag arin maaragtay sax ah oo maaragtay hadda la yiraahdaa waa arin lagu qanci karo inaysan ahayn arintu midda weeye midda labaad dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in cudurka la yiraahdo COVID-19 inuu dalka qabsaday aanfeeyay lagu soo rogay dadkii xayiraad kala fogaadana la yiri maadaama marka xayiraad lagu soo rogay oo gobolka Banaadir la yiri wax dhaqaaqi kara iyo wax toogi kara iyo laba meel fariisan kartaan lama arkin la yiri waxa hadana mushkilad ah ayadoon la dhihin cudurkii waa laga baxo dhaqaatiirtii wali ay leeyihiin COVID-19 ki waa jira in shacabkii Soomaaliyeed la isu keeno oo gobolka Banaadir la isu keeno oo maaragtay taasuna waxay noqonaysaa arin xoogaa maaragtay caqabadeeda leh iyagoo waliba mudaharaad iyo ordayo qaali iyo ciidankii booliiska Soomaaliyeed uu baanbaydi u garaacayo ummadii leer hal kala celiyo in la isku soo daraa laftigeedu waxay noqonaysaa waxyaabo hadda qofkii wax gartaa oo aan sax la ahayn waayo wali dawladdu mayna fasixin oo ma dhihin cudurkii waa dhamaada mayna dhihin arrin waa arrintaas arrinta labaad
saddexaad oon rabaa waxaa ka mid ah inaan u hambaliye iyo bogaadin inaan u diro maamulka galmudug oo dadka ilaahay isbaaraysanayay oo fadhiyey cadaado iyo meesha la yidhaahdo gaalkacyo bandiiradle dhexdeeda dadkii joogay oo ummadda furanayay oo qowlaysatada ahaa ilaa matamaan fadhiyay muddada dhowr iyo 30 sana hub qoryaha watay oo dhulkii sida hadda la ii sheegayo gaariga ka baxas beledweyne ilaa iyo uu ka tago gaalkacyo uu xor yahay qowlaysatadaas aan ilaahay iyo kitaabkiisa midna aqoon nimanka ka qabtana aad iyo aad aan ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay nin baa wuxuu yiri hadda koor aab waa dagaalamo saasan yeelo hagaas markaas imaan weyn dul sii dhawaata waxa marka wax walba ka fiicnaa lahaa arintaas inaad kitaabka ilaahay iyo sunnadana dib ugu dhaqdiin oo ummadaas aad shariicada islaamka aad ku dhaqdiin